رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه. waxaa laga wariyey abu hurayrata alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam allah waxa uu yidhi ibnu aadamku camalkiisoo dhan isagaa iska leh soonka mooye oo isaga anigaa iska leh anigaana soonka ka abaalguda. soonku waa gaashaan ee qofkiin markay tahay maalintiisa soomku yuu galmo samaynin yuusanna qaylin ama doodin. haddii qof la caytamo ama la dagaalamona ha ku yidhaahdo war qof sooman baan ahay. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray. u fiirso, soonku waa gaashaan macnaheedu waxa weeye naarta ayuu gaashaan ka xigsanaya sida seefta gaashaanku u celiyo oo kale uu ugu noqonayaa qofka. soonkaasi waa midka galmada, qaylada, doodda iyo caytamiddu aysan dhaawicinin. u fiirso sida uu allaah ula goonida noqday ka abaalgudidda soonka, ilan isaga uunbaa qofka dartii u sooman oge. xisaabtana ku darso in abaalmarintaasi ay ka sarrayso in aan la soo koobi karin abaalmarinaha acmaasha kale, maxaa yeelay waxaa la gooni noqday allah subxaanahu wa tacaala. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا